section 4 ka bilaabi doonaa cashirkeena xiga. Waxaa leenahay objectives-kana ku qaadan doonaa insert tables in la soo geliyo, border iyo shading in la isticmaalo, insert rows iyo columns, resize in lagu sameeyo row iyo column-ka, margin and split cells wax la yiraahdo in la sameeyo, sort tables, delete row iyo column, delete tables iyo qeybahan kale ayaa sameyn doonaa. Insert tables hadaa ku hormarno sida loo soo geliyaa table. Word 2013 makes it quick and easy to insert a table into document. Aad iyo aad wuxuu ugu dhigayaa si fudud oo dhaqso leh in laga soo geliyo ama aad soo gelin kartid documentigaaga table markaad joogtid Word 2013. Si aad u soo gelisid table waxaa leenahay click documentiga meesha aad rabtid inaad kasoo gelisid tableka. kadib waxaa leenahay insert tab, tables group, kadib waxaad doortaa table button. Drag waxaa jiidaa across the grid until you select the desired number of rows and columns. Marka calaamad yar oo jaala jirto, calaamadaas ku dul jiidaysaa ilaa numberkii aad rabtay oo column iyo row ilaa aad ka gaartay. And then release waxaa sii daysaa the mouse button, kadibna calaamada waa kana gridka markaa sheegana waa kana waxaa sameyn doontaa ku dul jiidi doontaa columns iyo rows ka aad rabtay ilaa ka heshay. waxaa leenahay note if you want to insert in soo gelisid table more than 8 rows. tusaale inta markaad joogtid habkan markaad soo gelinaysid wuxuu ku ogolyahay inta ilaa inta wixii ka dambeeya inta ilaa inta wixii la eg inuu hal mar soo gelin kartid, laakiin lama ogolo wax ka badan. marka note wuxuuna leeyahay haddaa rabtid inaad soo gelisid tablekaaga wax ka badan 8 row iyo 10 column waxaa leedahay click the table button, insert table to open the insert table dialog box. Enter waxaa gelida desired number of rows and columns in the corresponding box and then click OK button. sawirka meesha noogu muuqdo kale waa kana waxaa leedahay number of columns ka rabtay 12 column waaye, rows ka meeqa rabtaa 12 3 nooca rabtay ka dhigin kartaa tirada aad yaqaan. sidee loo soo geliyaa marka select table parts sidee looga doortaa table parts sidee loo doortaa in order to apply a formatting or make other changes to a table you need waxaa u baahan tahay to know inaad ogaatid how to select the various parts of the table. marka si tableka uga bedbedeshid ama format ugu sameysid waxaa rabtaa ama muhiim ah inaad dooratid ama aad baratid sida loo doorto tableska qeybo kamid ah. click waxaad siisaa anywhere to select a table parts. waxaa leenahay click anywhere in the table qeyb kamid ah tableka, cell ama row ama column waxaa doonaa ha noqdo midka aad rabtid dooro. table tools aad tagaysaa, layout tab, table group, click the select button and select the desired option ka open from the menu. tusaale waa kana select cell maaragtaa, column maaragtaa, row maaragtaa iyo table maaragtaa in lagu dooro ama hay'ad lagu saaro. waxaa leenahay adding border iyo shading si lagu soo daraa tablekaaga. border shading waxaan soo aragnaa iyadoo text caadi lagu soo daraayo, tablekana waa ku soo dari kartaa. waxaa leenahay border and shading can enhance the appearance of the table. waxay ka qaadan karaan qaabka uu muuqanayo tableka quruxdiisa oo kale. you can add a border oo ku soo dari kartaa and shading to individual cells, rows, columns intaba ku soo dari or ama the entire table. you can also change waxaa bedeli kartaa the border style, line, thickness or color. lineka borderska oo kale inaad thickness ka dhigtid wax noocaas oo kale. midabada waa bedeli kartaa. to add a border hadaa rabtid inaad kusoo dartid waxaa leenahay select waxaad doorataa tableka ama cellka aad rabtid inaad kusoo dartid borderka. kadib waxaa leenahay under table tools, design tab waxaa ka doorataa table tools qaybtiisa hoose waxaa ka doorataa design tab. kadib waxaa leenahay border group, click waxaa leenahay the border button to apply the most recently used border or ama click waxaa dhahdaa borders arrow, select waxaa doorataa different border from the menu. figureka meesha noogu muuqdo wuxuu noo sheegaa borderka markaas aad soo dooratay qaabka uu muuqanayo. shading ayadana sida loogu dari karaa, select waxaa doortaa tableka aad rabtid inaad kusoo dartid ama cellka aad rabtid inaad kusoo dartid shadingka. under table tools, design tab ka dooro, table styles group, click waxaa leedahay shading button to apply the most recently used color or ama click waxaa leedahay
shading arrow kadib select waxaad doortaa different color from the color palette ka dooro. Insert rows and columns ka bilaabi doonaa cashirkeena xiga practicada bilaawna hal mar. waxaan sameynaynaa practicada waxaa ku hormari doonaa waxa la yiraahdo insert table sida loo soo geliyaa. waxaad tagaysaa insert tab, home tab aad tagaynaa cashirada u dambeeyay sooma. hadda waxaan isku dayaynaa insert tab kadibna waxaan tagaynaa tables kadibna tableska grid kala waa kana mid badan waaye. hadda halahan doorto waxa ii soo baxaayo ilaa iyo 5 columns iyo 4 row ay ii soo baxayso. hadda sidaan doon waxa ii soo baxaya 4 column iyo 2 row. okay, column iyo rows waa kala arki doonaa waxa la yiraahdo. tusaale halaan oo kala soo gashtay. hadda halaan waxa waaye column-ka koowaad, column-ka labaad, column-ka saddexaad iyo column-ka afraad. sidoo kale row-gana waxa waaye row-ga koowaad, row-ga labaad iyo row-ga saddexaad. marka jiifka kuwa waxaa la lahaa row, kuwa jooga ahna waxaa la lahaa column. okay, hadda waxaan baranay sida loo soo geliyo table-ka waa iska tuuri karaa sida la iskaga tuuraa waa arki doonaa. ku dhufo waxaan leenahay backspace. table-ka waxaa rabaa marka halaa meeshan ku yaalo in ka badan inaan soo geliyo waxaan leenahay insert table. ku dhufo kadib waxaan gelisaa meeshan columns-ka aad rabtid. waxaa leeyahay tusaale 4 column waaye. rows-kana waxaa waaye 30 row xamal waaye. marka dad badan diiwaan geli rabaa xamal soo ma jeedid. meeqa column aad doortay? 4 aad doortay. rows-kana waa kana 30 xaba aad doortay. marka table-ka iyo row-ga iyo columns-ka sidaa rabta usoo gashan kartaa. waxaan arki doonaa marka sidee loo sameyn karaa table-kaaga haddaad rabtid inaad doorato qaybo ka mid ah. waxaa leenahay layout tab kadibna waxaad tagaysaa qaybtan ay ku qoranta select soo ma jeed. kadibna cell maaragtaa hal mid ogow haddii table-kaaga una ku doornayn ama cursor-ka gudihiisa ku jirin oo banaanka iska yaala cursor-ka oo kale meelahan oo kale iska yaalo wax layout tab ma arki doonti sababtoo ah table-ka hawshii laga qaban lahaa kuma dooro. marka table-kaaga meel ka mid ah click dhisay kadibna waxaa kusoo bixi doona layout tab kadibna waxaad doorataa select. intaan options midkaa rabtid baahidaada adaa yaqaano. haddaad rabtid marka cell inaad dooratid waxaad leedahay select cell-kan oo ii doora sababta waxaa waaye cursor-kayga marka u dambeeyo wuxuu yaalay godkan. haddii godkan aa geeyo tusaale cursor-ka kadib layout tab aa galo select aa dhaho cell aa dhaho wuxuu sameyn doonaa cursor-ka meesha u dambeysay oo yaalay ayuu kuu doori doonaa. okay, cursor-ka meeshiisa yaalo waxaa leenahay select. haddana mar kale column haddaa dhaho muxuu sameyn doonaa column-kan waxyaalaad saari doonaa. haddaa row dhaho muxuu sameyn doonaa row-gan waxyaalaad saari doonaa. table-ka dhan haddaa dhaho dhammaan u saare. marka column-ka fiiriyo waa kasaa. haddana haddaa dhaho row-ga sidii saacadii ku celi kadibna waxaa leenahay select row. muxuu sameynaa row dhan inaad doorano. kadib waxaa dhihi karaa table-ka dhan heelad saar dhammaan sidaas heelad u saari kartaa. option kale table-ka heelad u saari kartaa waxaa waaye inaad ku dhufatid inta inuu heelad sidaas ku saarto. tusaale waxaa rabtaa table soo gashatay oo dadkiisa yar yahay. tusaale table halaan oo kale soo gashatay. waxaa rabtaa marka in inta markaad joogtid dadkii wixii aad qortay ama daatada aad ku shubtay waxaa rabtaa hoos inaad usoo degto. waxaa leedahay enter haddaad dhahday ciladana soo baxaysa maxaa waaye. okay, qoraal ma aha marka kan oo yacni sida documentiga caadiga qoraalka aan naqaanay oo enter marka loo hoos usoo degayo camal wuu ka duwan yahay. waxaa dhihi doonaa kan tab aa leenahay. tab marka dhahday wuxuu sameyn doonaa qayb hoose row hoose inuu kusoo dejiyo. haddana tab aa dhahday cell-ka xigo, tab aa dhahday cell-ka kusii xigo idin tab marka dhahday haddana xigo. okay, waxaa rabaa marka cell-kan hadda aad taagana midka ka horeeya oo kan ah waxaa dhihi karaa shift plus tab oo gadaal kuu xilinaya ayadana waa sameyn kartaa. table parties-ka qaybtaas aa ugu bixinaa.
waxaa sameyneynaa hadeertaan adding border iyo shading. Tableka hadda ku yaal waxaa rabtaa border iyo shading inaad kusoo darto. Sidee loogu soo dari karaa marka? Border iyo shading markaa rabti inaad kusoo darto tableka waxaad tagaysaa design tab, kadibna waxaa ka doorataa marka hore waxaa ku hormareynaa border marka waa kana. Kadib waxaa leenahay hadda meesha kaliya wax ka bedelaa waxaa cellka meesha ii tagnaa. Tusaale tableka dhan aan doortay, kadib waxaa leenahay border, kadibna borderka noocyadan midka rabtaa isticmaali kartaa. Tusaale noocan oo kale borderkan waa isticmaali kartaa. Shading waxaydan waxaa isticmaali kartaa soo furkan, kadibna midabadu way badan yihiin shadingka loo isticmaalo midka rabtid ka dooro. Tusaale kaas oo kale doortay, kadibna shading iyo border u samaysatay. Sidaas waxaa ku samayn kartaa borderkaaga shading iyo border. Sidee looga qaadaa marka? Waxaa leenahay markaa ka qaadaysid soo furkan, kadib waxaa leenahay all border oo ahaa qaybtan waxaa ka doorataa no color.